walaalayaal waxaan maanta doonayna idinla wadaago nin kale oo isaguna magaalada maxaa la yidhahdaa aan ka noqdo waxaan doonaya idinla wadaago asxaabi ka mid a asxaabta nebiga calayhi salaatu wasalaam asxaabigaasi wuxuu soo muslimay sida la yidhaahdo sanadkii 7 ee taariikhda hijriyada islaamka marka sanadka 7 ee leeyahay waxaan u jeedaa 4 sano unbuu nebiga calayhi salaatu wasalaam la noolaa asxaabigaas waa asxaabi qiimo badan ku leh waa asxaabi dadka oo badankiisuna ay wada yaqaanaan qof ma jiro muslima ilaa iyo magaciisa waxaa laga yaabaa inuu in badan maqlay hadduu salaada jumcaha tukado waxaa laga yaabaa inuu maalin kastaba maqlo wiigii kastaba aan u jeedayo inuu mar maqlaa laga yaabaa hadduu dadka diinta barta yahay waxaa laga yaabaa mar kastuu kitaabka kala furaba inuu magaciisa maqlo magaciisa intaanu muslimka noqonin waxaa la odhan jiray cabdushams baa la odhan jiray markuu muslimayna cabdiraxmaan baa loo bixiyey wuxuuse aada ugu magac dheeryahay ay dadkao dhan u wada yaqaanaan abaa hureyra la yidhaahdaa waa asxaabiga يعني جليلك waxaan oran karayaa waxa weeyaan waa xaafidkii axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo soo gudbiyey in badan oo ka mid a maxaa la yidhaahdaa tacliinta diinteena maanta qaab wax badan oo salaadeena soonteena asaynu xajayna sekada loo sambixiyaa waxyaabo badan ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam ka weeleeyay aan idhaahdo dowladna bini aadmiga inuu ugu horeyno inoo soo gudbiyey oo haddaan isaga aan inoo soo gudbin lahayn wax badan baa inaga lumila saadarteed ninkaas odaygan idinla wadaagaya asxaabiga radiyallahu anhu abuu hurayra la yiraahdo waxa weeyaan markuu soo muslimay ninkaas wuxuu sameeyey wuxuu ogaaday daalama uu ka dambeeyay dad badan oo kamid ah dadkii nabiga calayhi salaatu saaxiibada la ahaa oo isagu goor dambe meeshan yimid wuxuu go'aansaday inta yare yacni uu la joogay nabiga calayhi salaatu salaam inaanu agtiisa ka faaruqin saadarteed nabigu uu khidmayn jiray uu la joogi jiray meeshuu jooga uu taagnaan jiray bal xitaa nabiga calayhi salaatu salaam wuxuu ka bariyay in maaragtay uu duceeyo oo xifdiga ugu duceeyo saadarteed abuu hurayra wuxuu ahaan jiray waxa marka uu maqlo ma aysan ka baxsan jirin wuxuu mar sheegana muusan ilaawi jirin saadarteed markii ay dhacday maxaa la yiraahdaa in uu nabigu dhinto sallallahu alayhi wasallam dadku waxay arkeen abuu hurayra wax badan sheegaya markii weydiinay war abuu hurayra warde nin goor dambe soo muslimay baa taa waxaan axaadiis xagaad ka keentay wuxuu markii aad ku mashquulsanaydeen xoolaha iyo iibinta reer madiina ay beerahooda ku maqnaayeen ku mashquulsanaayeen reer muhaajiriintii qaxootiga kaga timid makana ay yacni inay noloshooda dabaraan ku mashquulsanaayeen anigu waxaan ku gaajoon jiray masaajidka dhexdiisa saadarteed dacdooyinka laga soo wariyay waxaa kamid ah mararka qaarkood cunto la'aanta inuu yacni 3-4 cisho ay ahayn jirto mararka qaarkood ay la suuxi jireen masaajidka dhexdeeda dacdooyin badan baa ka soo arooran aanan u haynin maxaa la yiraahdaa imika barnaamijkan yar iska kooban 10 daqiiqo aan ku soo koobo laakiin wuxuu ahaan jiray qof ilaahay subxaanahu wa tacaala ku manaystay xifdi waxaa la soo wariyaa taariikhda aan akhriyay ka mid a in nin marwaan ibn xakam la odhan jiray oo ahaa dadkii muslimiinta markaa magaalada madiina maamuli jiray inuu maalin u yeedho ku ninka odayga ah waxaan rabaa inaan tijaabiyo maxaa la yidhahdaa abuu hurayra ayuu doonay inuu tijaabiyo xifdigiisa markaa wuu casumay abuu hurayra u yeedhay dadkan wax qoree karaariga la yiraahdo inako ama karaaniga ama dadka secretary-ga waana u yeeray wuxuu daba fadhiisiyay dahab uu daba fadhiisiyay wuxuuna ku yiri waxaad ii qortaa wax kasto oo abuu hurayra akhrinayo taariikh kasto idin sheego qora xadiis kasto sheega qora deedna ninkii wixii oo dhan buu qoray abuu hurayra u yeeray wuxuu ku abuu hurayra bal noo waran xadiistii nooga waran nabiga calayhi salaatu wasalaam deedna abuu hurayra kalba xadiis buu akhriyay markaa xadiis badan u akhriyay ayuu abuu hurayra yiri okay insha Allah jazakallahu khairan sanadkii dambe uu yeeray hadana ninkii karaaniga ahana uu yeeray wuxuu wax soo qaadataa secretary-giisii wax soo qaadataa waraaqdii aad sanadkii hore abuu hurayra ka qortay waraaqdii markaa ninkii soo qaaday markaa wuxuu akhri waxaan u yeeray abuu hurayra bal waxaad eegtaa kelmadihii sanadkii hore inoo sheegay in wax ka bedelo abuu hurayra uu yeeray wuxuu abuu hurayra waxaan jeclaan lahayn dad bal xadiistii sanadkii hore aad nagu akhriday aad hadana xusuusiso qaar kamid ah sidii abuu hurayra ugu bilaabay xadiis ninkiina xadiisyadii buu eegay wuxuu yiri wallahi taariikhda ku qoran laba xaraf ismuusan wareejin yani muu kala hormarin xarafku sanadkii hore yiri sidiisii sanadkii dambe u akhriyay saadarteed waxa la yiraahdaa abuu hurayra laga soo wariyaa
markuu yacni dee uu maaragtay waxyaabaha kale laga soo wariyay waxaa ka mid a siduu hooyadii u jeclaa hooyadii waxyaabaha laga sheeg waana siin rabnayn waalidiinteena dadkeena aan u jeclaano waxaa lasoo wariyaa hooyadii inaanay marka hore diinta aanay ku raacin waxaa lasoo wariyaa inaanu maxay hooyadii dee aada u jeclaa inay diinta soo gasho maalmaha ka mid a ayaa hadal haada xun ku tiri xitaa hadal aan fiicnayn bay nebiga ka tiri sala allahu caleyh wasalam waxaa dhacday markaa inuu abu hureyre isagu murugeysan uu nebiga u tegay caleyh salaam hooyaday saasay tireen rasuulka ilaahi hooyadii ugu ducee deedna wuxuu ku yidhi nebigu caleyh salaam ilaahi hooyada abu hureyre soo hanuuni dacadaas ugu ducee allahuma hadi umu abu hureyre ilaahu islaanta abu hureyre hooyadii soo hanuuni wuxuu aqalkii baan kusoo noqdo waxaan soo noqday weli albaabkii xidhan waxay ku tiri abu hureyre joogsa halkaaga waa way maydhanaysaa markay albaabkii ga furteen waxay tiri ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muxamad rasuulullah saasuu markaa hooyadii ula jeclaa khayrka habeenii maalin uga murugay annagana waxaa lanaga rabaa dee dadkeena inaynu khayrka iyo wanaagga la jeclayno hadday noqoto abu hureyre laba arrimood inuu dadka khayrka la jeclaa waxaad ku garanaysaan dee midda koowaad dee wakaas intaasoo axaadiisoo khayr faraha badan inoo soo wariyey midda labaad waxaad ku garanaysaa siduu ehelkiisa khayrka ula jeclaa dee wakaa hooyadii maalin kastaba ducada nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam uu raadinaya waxyaabaha cajiibka laga soo wariyey waxaa ka mid ah dhacdooyinka lagana yaabo inaan iskaga soo koobno in laga faa'iidaystana ay tahay waxay dhahaan markii dee nebigu dhintay caleyhi salaatu wasalaam muddo kadib dadku waxay iskaga tageen masaajidadii waxay ka mashquuleen diintii marka abu hureyre wuxuu arkay masaajidadii aada u camirnaan jirayo dadkii qaarkood aanay imanaynin saa darteed intuu magaalada dhex cararay baa wuxuu ku yidhahdaa baa laydhaha war dhaxalkii nebiga caleyhi salaatu wasalaam baa la qaybinaya masaajidadaa lagu qaybinaya maa doorataan marka waxaa dhacday markay dadku maqleen dhaxal dadkeena waxaa kusoo degay dhaxal marka la dhaha adduuniya lacag qaar badan baa isku sii daayay masaajidkii markay tegeen wax dhaxalay arki waayeen in xoolo la qaybsanayo abu hureyre kusoo noqdeena abu hureyre waxay ku dhahdeen abaa hureyro maxaad noogu sheegtay waxaan jirin been kugumaanu tuhmayne maxaa dhacay wuxuu wareedha maxaad kusoo aragteen masaajidka waxaan kusoo aragnay dad diin baranaya dad qur-aan baranaya dad axaadiis baranaya oo wuxuu ku yidhi nebiyada haddaa dadan maxaa laga dhaxlaa muxuunbaa laga dhaxlaa cilmiye lacag iyo maal lagama dhaxlo wacdigii abu hureyre kaasoo ah kan doonayna kuna ka faa'iidaysanaana waxa weeye haddaad goor dambe diintan aad rabtan aad wax u qabato xitaa goor dambe aad kusoo biirto waxaa laga yaabaa inay dad jiraan wallaahi aan ku dhalan diinta maanta oo wadamada galbeedka ku muslimay oo waxay barteen iyo waxay dadka tarayaan inta kale ay ka badan tahay dadkii ay ka badan aan idhaahdo ay ka badan tahay waxa dadka muslimiintu waxay tarayaan bal waxaa laga yaabaa waqti ay dadka muslimiintu culays diinta ku yihiin kuwii muslimiintu waxaan uga jeedaa kuwii ku dhashay hooyadooda aabood ay ku dhaleen in dad imika soo muslimay ay wax weyn u qabtaan waxaa maalmaha ka mid iga hor yimid yacni dhalinyaro yaran wax u dhiga ayaa waxaan tusay cajalad nin maraykana nin madow ah oo dadka muslimiinta dadka waaniya imika ka mid markaa dhalinyaro baa cajalada la daawanay markaa ninka wuxuu yidhi nimayo anigu xalkan kusoo muslimay maad garanaysaan waxaan kusoo muslimay jeel ku yaala magaalada Quebec meel aan gobolkan Canada wadankan Canada aan deganahay magaalada Quebec leedahay gobol Quebec leedahay jiro yacni jeel weyn baa ku yaala eedadaasaan kusoo muslimay waxaan u xidhnaa buuri laba qof aan dilay baa lay xidhay buuri markaa ninkii sidaa ahaayee laba qof loo xidhay laba qof uu dilay u xidhnaaye laga yaabo in 25 sano kasoo cunaye laga yaabo inaan weligiiba qof muslima la kulmin ayaa maanta wuxuu yahay halgamaaweyn oo dadka muslimiinta isagu waaniyo wuxuu sheega waqti dadkii muslimiinta iyaga laftigooda ay diintooda ka careen sadarteed waxaan leeyahay dadku xagga dambe xitaa hadday kasoo qabsadaan dariiqa dacwada iyo fidinta diinta islaamka waxaa laga yaabaa inay wax badan taraan oo kuwii ka horreeya ku dhashay aanay tari karin saas in abaa hureyre ka faa'iidaysan wuxuun bay u baahan tahay inuu qofku mabaadidiisa iyo fikirkiisa bedelo inuu noloshiisa bedelo oo xagga u socdo saa abaa hureyre oo kale isu dhahdo bini aadmiga marka dhimato kadib legacy baa la dhahaa ingiriisida maxaad ka tegaysaa abaa hureyre wuxuu ka tegay inuu miskiin ahaa inaanu lacag badan haysan inuu mararka qaarkood gaajoon jiray saasaa nolosha qaar loo qora annagu dadka uguma yidhi ina gaajoodo bahal sameeyo saa sameeya laakiin waxaan leenahay dad mabaadii la haddana noqdo oo sida abaa hureyre oo kale magac kaga tago oo bini aadmiga wax taro oo markay ka tagaan aan xumaan laga sheegin wax wanaagsan laga sheego oo ummadda waxbay u qabteen aan layn odhan muddo dhib bay kala tegeen dad baa jira maalin kasta la nacdalo dad baa jira maalin kasta loo duceeyo abaa hureyre inkastuu xagga dambe ka yimid asxaabta nebiga caleyhi salaatu wasalaam kaga soo biiray haddana waxaa dadka ugu horeeya markay noqoto fidinta iyo diin gaarsiinta waxaa kale insha allah aan rajeynaya markaa fidinta cilmiga iyo diinta in laga barto ayna dadku xitaa
goor dambe ha yimaadaan intay diinta iyo masaajidada yimaadaan ay wax ka bartaan inay dadka kalena sii gaarsiiyaan waxay baranayaan aanu ma raba inay culimo sheekhiyo masaajidada fadhiya noqdaan waxaan doonaya iyagoo waxay ay markaa ka haddii baayac mushtariyiin hadday arday yihiin hadday profesoro jaamacad yihiin iyagoo waxaasoo dhan intay masaajidada yimaadaan ay diintooda ay fahmaan inay bini aadmiga kale maanta u baahanna ay gaarsiiyaan intaynu isugu soo noqono barnaamijkeena shanaad insha allah inta ka horeysa meel kastood joogtaan iyo waqti kastaad joogtaanba waan idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh